السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أصحاب الموقالك لايك سبسكرايب inoo saar mahadsanid. qisada waxay ku bilaabanaysaa sidatan aniga iyo saaxiibkeen aad ayaa isku jecleen jaamacadii waa qalin jebinay laakiin jaamacadda markaa qalin jebinay nasiib xumo waxaa lagu soo biirsiiyay kooxda ciidanka aniga kooxda ciidanka markii la soo galiyay maalintii ugu horeysay dagaal ayaa galnay oo gaari weyn ayaa meesha soo maray laakiin anaga waa ka gambanay laakiin nasiib xumo waxaa lagu soo tuuray madfac aad iyo aad u weyn anaga waa ku dhaawacmay xaggaa waxa imaaday gaariga ambalaasta markii la geliyay gaariga ambalaasta waxayna keentay isbitaalka markii la keenay aniga waxa lagu dhahay adiga waxaa noqotay indhoole waxaa noqotay adiga indhoole arintaa markii lagu dhahay aad iyo aad ayaa u naxay waxaa dhahay saaxiibkay maajid aaway dhaqtariintii mayse ii jawaabin oo arintaa iga qariyeen waxaan garan waa wax iga qariyeen laakiin markasta saaxiibka maajid ila sheekaysan jiray wuxuu lahaa see tahay xaaladda ka waran adiga laakiin hadda indhool ayaa noqotay waa ku xumaa saaxiib ayuu dhihi jiray markasta saaxiibkay qolkayga ayuu ku wareegsan jiray oo markasta anuu ila joogi jiray baalibaan wax kamid ayuu dhahay saaxiiba xasuusataa qarixii waagii nagu dhacay xasuusta qarax waagii nagu dhacay hadda magaalada aad iyo aad ay isku bedeshay oo waxay noqotay magaalo aad iyo aad u qurux badan aniga markuu intaa igu dhahay waa iska qasanay oo waxaa soo xasuusanay qaraxii waagii igu dhacay saaxiibka ayaa wuxuu dhahay waqtiga wuxuu isguraba adiga waxaa soo xasuusan doontaa inaa aniga kula joogin ayaa soo xasuusan doontaa aniga intaa wuxuu ka wada waa faham waayey oo waxaa maqlaya soo sii dhahaya saaxiib waa kaa tegi doonaa ee macasalaama dhan ayuu igu soo celcelinayay wuxuu lahaa saaxiib macasalaama waa kaa tegi doonaa macasalaama maantana waxaa lahaa muxuu kugu soo celcelinaya macasalaama wuxuu dhahaa waa markii ugu dambaysaas arkayno macasalaama erigii macasalaama madaxa ayuu iga galay oo waxaan garan waayay macasalaamada wuxuu kula jeedo dhakhtaradii ayaa u yeeray waxaan ku yiraahday saaxiibkay maajid ma aragtay oo meelaha ma joogaa dhakhtaradii ayaa waxay igu tiraahday saaxiibka maajid wuu dhintay ma joogo wuu dhintay ani markii intaa igu dhahday aad iyo aad ayaa u dhaxay oo waa ooyey aad iyo aad ayaa u ooyey asxaabay baartituu la socdaa macasalaama oo youtube-keena kay sheeko kasoo daabta subscribe inoo saara mahadsanidin